runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta ceelkii biyo kulule oo taariikhda Boosaaso ku suntanaa inaan bulshada miidaadii magaalada Boosaaso hadda ku sugnayd inaan kula kulmo aad bay ii farax gelinaysaa waan inaga mahad celinayaa waqtiga kooban iyo sida wanaagsan aad u soo ajiibteen waxa runtii iswaraysigeenu uu badnaan doonaa haddii Ilaahay idmo dawladda iyo shacabkeedu way isu dhawaan doonaan oo xogtana way si dhow way ula wadaagi doontaan mar kasta iyo goor kasta waxaan kaloo ka mahad celinayaa soo dhaweyntii maalintii shalay magaalada Boosaaso sida uu wasiirku sheegay waqti badan la taagnaa iyadana waan ka cudur daaranayaa saad ogtihiin muddo dhowr casho waxaan ku maqnaa magaalada Kismaayo oo intiina badanba aad la socoteen hawlihii ka dhacay halkaas runtii Puntland waxay ku astaysan tahay dad wada tashada nabadgelyadooda sugta dawladnimada ka wada shaqeeya dadka Soomaaliyeedna kaalinta ay ka mudan yihiin garab istaaga mar walba beertan waxaan intaan xasuusnahay lagu soo dhaweeyay dad fara badan oo madax ahaa oo xilliyadii qalabsanaa ee 29 ama 91 markay dhibaatooyinka badan koonfur ka dhacayeen dhinaca koonfureed ka yimid ama gobolada Muqdisho gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa dadkii deganaa ahaadaan ama dadka hadda koonfur galbeed deganaa madaxdooda ahaadaan ama madax fara badan oo xilliyadii nabadda laga shaqeyn jiray halka imaan jiray ha noqoto goob caan ku ah in kulamada nabadda looga wada hadlay ayay ahayd inkastoo muddadii u dambeysay aan aad hoteeladu bateen oo aan la imaan laakiin macnuhu isu imaanshaha hotel kaliya maahan waa fiican tahay mararka qaarkood dhul furan dadku iyaga oo sidaan oo kale inay isugu yimaadaan runtii waan rajaynayaa dawladda hoose ee Boosaaso inay ceelkan iyo nawaaxigiisa ay aad u horumariso ka shaqeyso bilicdiisa ilaaliso nadaafadiisa hagaajiso annagana waa kala qayb qaadan doonaa wadada soo gasha in laga shaqeeyo inay wada laamiye noqoto wadooyinka hadda la wado inay qayb ka noqoto si dadku ay u yimaadaan maxaa yeelay ceelkan waa ceel caafimaad waa goob runtii dalxiis inaan horumarino waa loo baahan yahay ilaahay idankiisa dawladda iyo dawladda hoosena way ka wada shaqeyn doonaan kulanka runtii maanta muhiimadiisu waxay ahayd inaan isu xog waranno dalkeennu maraaxil kala duwan buu soo maray maraaxishaas ma raba hadda inaan dib ugu noqdo waxaan rabaa meesha maanta uu joogo iyo meesha loo socdo inaan wax yar ka iftiimiyo runtii wixii dhacay 91kii dadka Soomaaliyeed waa ay ka soo bogsoonayaan dhaawacyadii sababay loolanka siyaasadeed
oo saldhig looga dhigay loolan qabaa'il wixii ka dhacay waa waxaynu wada garanayno oo in badan u soo joogtay in badan oo dhallinyaro ana ay ku dhex barbaareen duruufahaas adag oo dalku soo maray dadka reer Puntland markay halka yimaadeen ma aysan ciilkaambiyin ma aysan ka shalaayeen wixii ku dhacay dib u xumo milicsan sida dabeecadooda ahayd horay ayay u socdeen deegaanadoodii oo baaba'sanaa bay dhisteen danahooday qabsadeen tacliintii iyo caafimaadkii wax ka qabteen amnigoodii bay sugteen maamul bay dhisteen wax lagu mahadiyo oo qof kasta oo caqli leh oo weliba markuu deegaanada kale ee Soomaaliya uu tago uu garanayo ayaa ka hirgashay maanta waxaad ogtihiin gobollada Puntland boqolkiiba 80 ama 90 waxa la oran karaa waa dhul aamin ah oo horumarku intuu rabo ha gaarsanaadeen wax ka socdaan iskuuladii baa furan MCAjadii baa meel walba ka jira ceelashii biyaha baa meel walba laga qodayaa haraadkii baa lala dagaalamayaa nabadii baa la baahinayaa saldhigyadii iyo ciidamadii baa meel walba jooga dhul aad u ballaaran oo dalal badan oo maanta xor ah oo adduunka ka jira Puntland baa ka baaxad weyn baaxadda Puntland maamul aanan ahayn maamul gaar u taagan oo maamul ismaamul ah shaqada inta inuu qabto waa mucjiso dadkeedu ay xaqiijiyaan dadka maamulka madaxda ka amaaha waxa dalka dhisay waxa dalka nabadiisa ka shaqeynaya waxa dalka horumarkiisa ka shaqeynaya ka mid baan ahaan jiray anoon xil hayn dadkaas gacanta ka geystay horumarka dalka in badan oo anoo kaleeta ah oo maanta aan xil hayn birri xil inay qabato rajaynaya ayaa maanta ku hawshan ama ganacsiga ka shaqeynaya ama tacliinta ka shaqeynaya ama isimada oon ka daalin oo nabadda iyo wada jirka ka shaqeynaya waxyaabaha runtii aan jeclaystay inaan la wadaago waxa ka mid ah dadku haddii ay gaaraan in ay wax wada qabsan waayaan oo kala shakiyaan waxaa ka faa'iideysanaya cadowgooda waxaa soo dhexgelaya dad nacabkooda ah waxaa soo dhexgelaya dad aan dantooda aan ka shaqaynayn Soomaalidu waxay tiraahdaa nin aan kuu rari doonin yuusan kuu furin hadhow nin cidla kaaga tagaya waxba macno la yeeran mayso dalkan intii alla isbaday baa halka ku wada dhaqan oo isugu soo guriyo noqotay waxa la rabaa inaan ilaashano nabadeena iyo horumarkeena waxa aan dhexdeena ka kala tabanayno waxa la rabaa inaan anagu isu sheegno mar walba dad meel isugu yimid khilaaf waa jiraya ama ha keeno khilaaf ula kaca oo qofku waxa uu tabanayo wax loola kacay ahaado ama wax qofkaas laga tabanayo ogaansho la'aan uu sameeyay ha noqoto maxaa yeelay qof walba wuxuu go'aan ku qaataa xogta hadba intuu hayo dadka mas'uuliyiinta maanta jooga way adag tahay inay xogta sidii la rabay u wada helaan maxaa yeelay dalka duruufaha uu soo maray wax badan baa isku dhex yaacay dadkii baan kala soocnayn dadka xarumaha dawladda ka shaqeeyay shacabkii waa isku milmay dad kale oo dana kalena dhexdeena ay ku dhex jiraan waxyaabahaas wax fiican maaha laakiin haddana waqtiga inuu keenay waan garawsanahay oo oran maayo maxay u dhaceen laakiin waxaa muhiim ah in dadku uu mar walba dareenkiisu uu sarreeyo inay muhiim tahay dabcan magaalada Kismaayo markii aan xafladeeda ka qayb galnay aad baan ugu kuurgalay duruufta iyo dadku waxay ku nool yihiin waxaan ogahay marka la yiraahdo maamulada Puntland iyo Jubbaland baa ka jira Kismaayo buu hadda awoodda Jubbaland ku urursan tahay nabad baa ka jirta dadku waa faraxsan yahay dadku waa midaysan yihiin meel bay u wada socdaan nolosha waa la dagaalamayaan laakiin marka dhinaca kala fiirsid dekada Kismaayo xataa aan huuri ku xirnayn baan tagay hal huuri xataa kuma xirna iska daa doon iyo markaba wax soo degaya wax dhoofaysan jirin marka waxaan soo xasuusan nimcada annaga aan haysano iyo tabashada faraha badan oo dadkeenu inta tabanayo dalka meesha uu joogo waa meel halis ah waxaa in lagu kooniyaa nabadda aad haysataan waxaan lagu kooniyaa maamulka aad haysataan waxaan lagu kooniyaa xoolaha iyo ganacsiga aad haysataan iyo xiriirka caalamka la leeyahay dadku meelay Kismaayo xataa dadku haddii jiradaan ma dhoofi karaan afkumadooda u dhow ma tagi karaan ciladaha soo baxay oo runtii aynan haboonayn
waxaa keliya oo isku aadi jireen markay gado iyo magaalooyin ka imaanayaan jidadkoo dhan waa ka xiran yihiin xagga marka loo baxana meel cabdalla biroole la yidhaahdo aan waxba u jirin bay ragaha fadhiyaan halkanna goob weyn haddii la dhaafo xaalkeedu ma fiicna in yar bay ku wareegsan yihiin afarta jidhaha laga xiray nin iska shacaboo weliba shacab aad u hooseeyo muuqaalkiisa aan laga shakinayn hadduu rabo iyaga xiriir la leh inuu iska marmaro waa dhici karta laakiin nin mas-uul ah nin oday dhaqan ah nin ganacsato ah nin wax isku falaya inuu hawada uga baxa mooyaane kismaayo awalba dhulka uga soo mari jira hawadiina caqabadahaasaa ka haysta runtii degaankan iyo degaanka jubbaland waa degaan mataano ah maaha aanan hore u aqoon baa ka soo barto waxaa la yidhahda indhuhu waa isku seexdaane ma kala seexdaan bay igu maamaahayn dadkii markaa un tegey waxay dhaheen puntland iyo jubbaland waa laba indhoodoo inay isku seexdaan la rabo anuu horey uma maqal runtii marka laakiin waa garanayaa dadkaas dareenkooda siduu ahaa siday u danaynayaan puntland garab istaaggeeda dadka halka ku dhaqan dadkiisa kale xagga jooga waxaan fursad u helnay mujtamaca siduu u kala qaybsanaa inaan ula kulanno awal waxaa la dhihi jiray kismaayo harti bay lahaan jireen laakiin hadda koombay u dallaceeno annagu awal koombaha halka waa ku lahayna iyagaa qayb ka maqnaan jirtay annaga koombo waa nugu jira markaan halka joogno oo degaanku koombo halkay ahaan jiray marka laga tago dadka kaloo daaroodka ah oo hadda puntland la degan khaasatan iyagu dhaqankaasay lahaayeen harti wax la yidhahday lahaayeen laakiin hadda nidaam koombo la yidhaahdo markay koombo u dallaceen raggii kaloo walaalahoodana kuumaday u dallaceen iyaguna marka labadiiba gaargaar baan ula shirnay sado waa la kulannay soomaalida kale deganna waan aragnay daarood oo dhanna waan wada aragnay runtii iyagoo dhan oo odayaashoodii dhaqanka iyo waxgaradkoodii ah runtii duruufaha iyo dareenkoodana waa dhegaysanay annagana waxaan kula dardaarnay soomaalida halkaa deganayd maadaama iyaga is ogol yihiin inay nabadda ilaashadaan inay midnimada ka shaqeeyaan annaguna waxaan u ballanqaadnay inaan garab istaagannahay mar walba wax kastoo awooddeenna ah af iyo adinba inaanan kala hagran doonin runtii shirkaas kismaayo si aad la socotaan dowladda dhexe saluugmay ka muujinaysa aad baan runtii isugu dayey in arrintaa laga gudbo oo xaaladda doorashada ee meesha ka jirtay ama ka dhacday sida aqlabiyadda dadku ay danta bideen dowladnimadu waa wixii dantu ka badan weydo aqlabiyadda dadku waxay door bideen oo dantooda inay ku jirto garteen in axmed madoobe oo anigu naftarkayga aan qirayo kismaayo waxaan tegay 2013 waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii berigaas u malayn maayo halka inay kulan baa igala jooga xildhibaana anagoo ah baan 2003 tagnay say ahayd baan ogaa anoo wasiiraan tegey anoo xildhibaan keliya baan tegey anoo musharaxaan tegey maraaxishii dambe isku bedbedelaysa aad baan ula socday dadkeeda iyo madaxdeedana aad baan isugu dhoweyn horey iyo haddaba waxaan qirayaa runtii horumar ay puntland sidaas degdega u gaarin inay gaartay waxaan u malaynayaa hadda baraha bulshada inaad ka aragteen meesha aan deganayn waa meel xeebta saaran oo qar dushiis ahayd waxaa ka dhisan guryo marti oo aad u qurux badan oo waaweyn ciidan nidaamsan oo dalka nabadgelyadiisa gacanta ku hayo xafiisyo dowladeed ee horumar la taaban karo oo dowladnimo ah oo saanqaad fiican la weliba baa ka jira dadkaas waxay garteen inay weli u baahan yihiin duruufaha weli gobolkaas waxaa gobol khilaafaad badan soo dhex galay soomaalida oo dhan ay wada degan tahay axmed wuxuu ku guulaystay inuu dadkaa isku hayo muddooyinkii lasoo dhaafay isku qanciyo is ogolaadaan ee isku tolmaan way u baahan yihiin wayna mudan yihiin inta ay ka adkaanayso dadkaas ku adkaanayaan oo habka wax qaybsigooda iyo wadajirkooda uu hagaagayo inuu sii hayo amba ay la qumanayd runtii dadkaasna sidaasay u doorteen dadka waxgaradka oo dhanna sidaasay u arkayeen maamulka dowladda dhexe muddan anu la hadlayey runtii jawaab muqnica oo aan garowsado sababtaas anu aanan ahayn 2020 markaan doorashadu rabno inaan ku soo noqonno baan axmed garab ka heli doonin waxaanan ahayn anugu arki waaye 2020 wixii soo noqonaya ilaahay gacantiisa ku jirta
qofkuna dadaalka inuu sameeyaa laga rabaa laakiin markaa go'aan qaadan jiraysid waxa joogaa lagu qaataa dadka jooga nabadooda iyo wadajirkooda iyo wanaagooda iyo nimankan u soo cartamaya bannaanka ka jooga maamulka hadda is haysta in uu iska celiyo baa sida ugu habboon ay ku jiri kartaa laakiin haddii ay noqoto aniga dantayda ma aha hebel xoogaa waa arrimo u baahan kolle Puntland waa ka gudubtay dadka kale inay ka gudbaan waxa way qofku madaxda ah mar walba dantiisu waxay ku jirtaa dadkiisu waxa ay doonayaan dadkiisu hadday u arkaan inuu u shaqeeyaan inuu aqbalo hadday arko inay dadkiisu diyaar u ahayna dadka iyo dalka iyo danta guud baa weyn tiisu macno badan ma yeelato marka runtii arrintaas waxay u baahan tahay dhiifoonaan waxaa halkaa yimid laba madaxweyne hore iyo madax aad u fara badan oo weliba deegaanka koonfurta Soomaaliya aad uga yimid iyo meelo kaleetaba dareen dhiilo leh baa ka muuqanaya dadkaas idinkuna waad aragteen baan u malaynayaa cabursanaan iyo raalli ahaansho sida hadda maamulka dawladda dhexe ee Muqdisho xaruntiisa ay wax u wadaan baa u muuqanaysa waxaa ka muuqanaysa runtii caro aan anigu ka baqayo inay geysiiso in mar labaad dadku kala irdhoobo oo runtii anigu aan ka digayo iyagana waan kala hadlay waxaan ku iri caradiina halka ha gaarsiinina haddii wax khaldan yihiin in la saxo la wada saxay u baahan tahay laakiin runtii dareenkooda weliba dadku markuu madax soo maro way arag weeye dareenkooda dareen dhiilo leh buu ahaa dadka reer Puntland waxaa la rabaa marka waxaa la gudboon kow haddii dalkii ay dhici karto khilaaf sababi kara isna cayb inuu qarka u fuulo taxadar badan baa laga doonayaa marka taxadarka laga doonaya waxa way kow inay iyaga midnimadooda ilaaliyaan waxa ay haystaan ay ilaaliyaan labo biyo intay soo gaarin baa la moosaa baa la yiri arrintaas intaysan fidin in laga hortago oo gacan aan ka geysano hadday si dhaqan tahay iyo hadday si siyaasadeed ba tahay mar walba waxa la rabaa nabadda iyo wadajirka inaan ka shaqeyno waxaan rabnaa dadka inaan u caqli celinno waxaan u baahannahay dadka inaan sida maslaxadda tahay aan kala talino waxaan ii muuqanaysa arrimaha noocaasa oo runtii aan hifafaalaheeda soo arkay qofku waxaa laga yaabaa mar uu wax ogeyn inuu isaga riyaaqo laakiin mar uu wax ka qaban karin inuu ku baraarugo howlaha hadda socda oo dadka iska horkeenta iyo kicinta iyo caburinta ah waxay halis u tahay deganaanshaha iyo xasiloonida inay wax dhinto waana arrin khatar oo u baahan in laga foojignaado waxaan kula talinayaa dadka reer Puntland iyagana inay ka digtoonaadaan dadka kaleetana ay balagaas ay ka damiyaan dalkan wili ma gaarin doorasho tartan furan oo dadka la kala jiito oo intii xisbiyadii anagu nin yar baa ahaay ragga halka fadhiya sheegi doonay lixdameeyadii xisbiyadii intii reeraha loo kala baxay la iscaayi jiray oo ninka iyo xaaskiis laba meelood u kala codayn jireen taas dalkan wili maxaa yeelay dawlad adag oo dadka fursad siinaysa ay ku wada hadlaan laakiin ay amniga wax yeeli karin baa jirta maanta dadku waa hubaysan yihiin wax yar oo fidma ah hadday kacdo lama celin karo waxaa la rabaa habka looga gudbaayo arrimahaas inay noqdaan hab la wada dhiraandhiriyey oo laysla ogol yahay hadda meesha ay marayso nin damac leh oo siyaasiya way dhici kartaa mar walba inuu dantiisa keliya eegto laakiin anu waxaan ku dardaarmayaa danta caamka ah mar walba inay ka muhiimsan tahay danta qofka siyaasiga ah in la ilaaliyo u baahan waxaan insha Allah rajaynayaa inaan kulligeen gacmaha isqabsanno nabadgelyada iyo horumarka aan ka wada shaqeyno gobolka bari oo runtii anigu aan ka soo jeedo waxaan ka codsanayaa nimana idaacadaha ka maqlo oo dhaho haddaan nahay gobolka bari inay iska daayaan haddaan hebel ahay ha dhaho waasay dhaliili karaa aniga laakiin intuu soo fariisto meel uu dhaho gobolka bari haddaan nahay gobolka bari dadkoo dhan ba ah yaa soomaalida Puntland joogto dhan gobolka bari waa u ah hooyo oo degaan u ah marka waxaan rajaynayaa meel baan u wada soconnaa ma kala soconne waxa naga hadlaysanna aan annagoo oo miyir qabna
isweydiinno wixii khaldan aan iska qabanno wixii in lays dhaliilo waa ogolnahay marar badan baan ku celiyo horumarka puntland ama baray ahaado waagi hore waxaa la dhihi jira bari iyo bogax sooma inta kale bogax bay ahayd bari iyo bogaxba waxaan rajaynayaa inaan isku mid ah inaan uga wada shaqayno oo danahooda wada ilaalinno laakiin awooddoynana waa kooban tahay wax walbaan gaari karnaana ma odhanayno marnaba waxbaa naga khaldanaanayaan ama garasho xumahana gaarsiiso ama tabardarrahana dhigtee waxaan rabnaa ciddii wax nagu dhaanta caqli iyo tabarba inay noola soo degdegto annagaa diyaar u ah waxaa khaldan inaan saxna annagaa diyaar u ah waxaa naga dhiman in laga caawiyo annagaa diyaar u ah wixii wanaaga aan ka qabanaynana in gacno lagu siinaa inaga codsanayna haddii lahayd farriinta ugu muhiimsan waxa weeye oo kismaayo aan ku soo arkay dadku aad bay nabad ugu nool yihiin hal shay baa sababay dadka nabaddiidda ah iyo dadka magaalada kismaayo ku jooga waa colloobeen isuma dhuuntaan marka dadka haddaad la colloodid kugu soo dhuuman maayo bannaankaas waxaa iskaga qaadaan waa leedahay laakiin haddaan midba mid uu ku fiirsado oo dhexdeenna nuxnux ku jirto oo xaafadaha qaybna waa ku dhuuntaan qaybna ma tagaan la yidhaahdo halkaas waxa weeye waa cadow idinka idinkala qaybinaya ukultu yowman ukultu thoobul muxuu ahaa abyad sooma ahayn adiga hadda wuxuu isaga kaa dhigayaa inuu saaxiibka ilahay markuu ninka kale soo baabi'iyo adna waa kugu maqan yahay nimankan meesha ku jira labada degaanay degeen waa degaanadeenna ugu hodansanaa dad bayna qabbaan ka yihiin oo meesha u degan yihiin dadka ku soo gurmaaya buuraha xogta aad haysaan anna aan hayo madaxda dadka ka ah xataa waa dad degaano kale ka yimid oo dano kale leh intii ka warqabtaa ka warqabto wixii yaryaraayo xataa marka hore la duufsaday xabad baa ama dagaal buu ku dhintay la yidhi ama isqarxi la yidhi si unbaa ama koonfur baa loo bedelay wax la yidhiba meesha waa laga sifaynaya waa dad duulaan ah oo barwaaqadiina iyo degaankiina duulaanku ah oo u baahan in la iska qabto waxaan inaga codsanayaa dadkaas inaan la collowno iska dhicno maxaa yeelay maadaama danteenna ay ka soo horjeedaan wixii markaan collowno heshiis naga dalba waa ka tashanaynaa ninkii ogol inuu wixii ku jira heshiis ka qaato waa la gartamaynaa xalna waa ka gaaraynaa laakiin nin cadow kugu soo socdo ah indhaha ka fiirso taas waxa weeye waxaanan caqliga uusan saaxiib u ahayn waxaan rajaynayaa inteenna annagoo wada jirnaa inaan ku guulaysan karno inaan dalkeenna danihiisa ka shaqayno waxaan inii sheegayaa hadalkaas waa muhim soomaali oo si mida u wada shaqaysa wakhti bay u baahan tahay anuu federaalka madaxna waa ka soo noqday si fiicanna waan dadka inugu badiyo inaan ahay waan malaynaya degaanadaas koonfurta dantiinna ilaashada waa dardaarantaas gaar ah maxaa yeelay dantaas iyo tayda iyo tiinu mid bay wada weeye ma kala lihin haddaad la arki jiray qofka madaxda inuu dan gaara leeyahay dadku intiisa kalena dan leeyihiin taas fikir saxa ma ah isku masiir baynu nahay dadkii madaxda ahaa ee dowladdii dhexe markay jirtay qaybtayado aan dhaliili jirno oon dhihi jirnay nidaamku ka tirsan yahay oo sirta laga qarsan jiray markii la qaxay waa la isla wada yimid soo maha halka yaah mid mahbar ahaa iyo mid kaleetaba halkaa la isugu yimid markaasay kulli s s d f wada noqdeen haddana ya kuwii la dagaalami jira markay halka yimaadeen fursad kale waa waayeen s d f bay wada noqdeen marka waxaan rajaynayaa kolley waa ishurannahaye inta goor tahay aan tashanno wixii naga khaldanna ayn saxanno xukuumadda iyo dowladda aan anigu mas-uul ka ahay waxaan mar walba ku baaqayaa wada hadal iyo wada tashi iyo in si laa furan wixii khaldan loo wada saxdo dana gaara ma lihin dantiinna ayaan ka shaqaynaynaa oo noo doorateen oo u dhaarannay dantaas dad inay naga sheegtaanna ma rabno oo yidhaahdaan annagaa mas-uulka ah dad gaara inay naga sheegtaan diyaaru mani danta annagaa u dhaarannay annagaa ilaalinayna idinkana kaalmaan iniga filaynaa haddaad aragtaan inaan ku filnayn dantiinna abbaar baa u leedihiin
inaa marka horan dhalishaan marka dambana talada inaga gudban aan qaadataan laakiin qof dan kale leh danta halkan nagama sheegan karo taasna waa inay muhiim noqoto meesha aad rabtaan baa idinla rabi doonnaa meesha dantiinna ku jirtaan danteenna ku jirtaa horumarka wixiinan u arag annagana uma arki doonno wixii mugdi inaga jira waa inaga faafin doonnaa waxaad xog ku haysaanna waa noo sheegi doontaan wakhtigeeda iyo munaasabadeeda waxaan iniin rajaynayaa in halka maanta markaan soo aadaynay dad badan baa baqaayo waxay lahayn war meeshaas ma la tegi karaa inaan dadka laga baqin wada jirkeenna markii la arko iyagaa baqaaya annagu waxa keliya oon cadowgeynna aan ku jabin karnaa waa in wada jirkeenna aan ilaalinayo midnimadeenna degaanadeennana annagaa iskaloo ilaashanayna wixii turxaan ah oo jirana insha allah waan turxaan bixin doonnaa dowladda soomaaliya ee federaalka ah puntland iyadaa ah macnahaas in la saxaa loo baahan yahay haddaad maqashaan Somali federal government the only state-ka keliya oo sifo sharci oo dastuuriya oo iyada markii la dhisay ka horreeyay oo ay aqoonsaday dastuurka markii la dhigay Puntland way waa gundhig meel ay uga bixi karto ma jirto laakiin maadaama dastuurka iyo sukeenkaas awoodiisa iyo waqtigeeda ay lahayd ilaalintiisa doorkeeda waa saaranya waa waajib waan ilaalinaynaa anigu haddaan joogo iyo kan iga dambeeyo imaan doonaba ilaalinta reer Puntland inay ilaaliyaan nidaamka federaaliga waa waajib saaran way waa muhiim arrintaas ama Puntland ha joogo qof reer Puntland ama dawladda dhexe ha ku jiro oo maaragtay Muqdisho ha fadhiyo ama meel kasta ha joogo waajibkaas waa saaran yahay ama dibaddaba ha jiro marka waxaan rajaynayaa waajibkaas inaan sumida u wada aragno aragtiyaha siyaasadeed ma dhahayo kulli aan ka midoobno loolan siyaasadeed waa jiraya aragtidana lagu kala duwan yahay laakiin waa inaan la isku khaldin wada jirka iyo dowladnimada iyo siraaca siyaasiga ah loolanka siyaasadeed iyo maamulka dhismihiisu waa kala duwan yahay in la ixtiraamo u baahan yahay qofka maamulka soo fuula sifo sharci ah unbaa lagu bedeli karaa propaganda laguma bedeli karayo Facebook dad qol ku qayliya iskama bedeli karaan sifo sharci ah unbuu u baahan yahay sharcigaasna waxaa la rabaa teeramna waa leeyahay haddii teeramka ka hor wax loo baahadana waddooyin la maruu leeyahay laakiin waxaan rajaynayaa sida lagu yaqaano dadka reer Puntland oo ay dulqaadka u leeyihiin qofkii meeshaas dowladdaas markaa joogta in lagu garab istaago si nidaamka uu ilaashano waxaan aad uga digayaa talada Puntland inaan meel kale laga goyn ama laga soo warrabin waxaan baryahan maqlayaa nuux oranaysa hebel iyo reer hebel baa xamar lagala soo hadlay marka anu xagga jiri jira lama soo hadli jirin waxa sameeyay noo dhihi jirin ninkii xagga jira sideedna aan uga shaqeyn jiray odayaashu dalku u maqan yahay danihiisa una ka soo shaqeeyo laakiin talada dadka hadba markaa gacanta ku haya ku filan marka waxaan rajaynayaa hadba inta markaa joogta ayaa talada iska leh dowladnimada gobolkan dabcan wasiiraha xarumo u yihiin guddoon gobol baa jira kii degmadaa jira qaybihii kale dowladda mar walba fadhiya madaxweynuhu hadba gobolka uu joogo ayaa xaruntiisa ah marka ay la joogo anay xarunteeda tahay marka ay naga maqanahayna dowladda inteeda kale joogta waxaan rajaynayaa inaan si midaysan weliba magaaladan Boosaaso oo dowladdu halbowlo u ah inaan ka dhabaynaan rabnaa maqaamkii iyo sharaftii ay lahaan jirtay Boosaaso inay soo noqoto taas waxay ka mid tahay ajandayaasha shaqadeena dowladdaana ka mid tahay ilaahay idankiis waqti aan fogeyno waad arki doontaan ma oranayno haddaan dhalanno waa cararaynaa laakiin waxaan inii sheegaynaa mashaariicda aan gacanta ku hayno mashaariic aan iska oranayno ma aha mashaariic aan campaign ku galayno ma aha qofku laba mar buu dadka mashaariicda qaybtood uu ku beer la xawsada ama markuu wax doonka yahay ama markay ka sii dhammaanayso mid kale rabo anigu labadii midna maahay marka
sababa inii beer la xoosado meeshaan ma taallo waa dhab bay naga tahay wixii aan u aragno inay khaldan yihiinna idinka annagaa noo doorateenoo mas-uuliyaddeenna tahay wixii wanaag aan u aragnana annagaa ilaahay idankiis inugu hagi doonno taladiinnana mar walba ka maarmimi doonno haddii ahaan lahayd odayada isimada iyo dhaqanka iyo waxgaradka iyo cid walba oo munaasaba waxaan noo rajaynayaa guul waxaan noo rajaynayaa midnimo waxaan noo rajaynayaa israac iyo inaan isu dulqaadanno wixii naga khaldan aan saxanno aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah